imikana waxaanu yeedhayaa xidhiidhiyaha qaaradda Yurub iyo Ameerika Cismaan Cumar Dool. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan halkan marka hore ka salaamayaa dhammaan dadweynaha reer Somaliland. waxaan si gaar ah oo iyagana gaar ahaan u salaamayaa taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ah ee wadani iyo wicid. waxa kale oo aan si gaar ah u sii salaamayaa haddana taageerayaasha xisbiga wadani iyo madaxda xisbiga gudoomiyaha xisbiga xirsi xaaji cali xasan iyo musharaxa madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo madaxda kale xisbiga oo dhammaan salaamaya. haddaan salaanta ka gudbo aanu hadalkani ujeedadiisu waxa weeyaan aanu shirka jaraa'id u qabanay intayadii halkan joogtay ee xisbiga matalaysay iyo dad kale oo Somaliland magac ku nala jooga oo ka mid yahay ex ambassador hore mingista uu ka mid yahay. waxaan u qabanay inaan wax ka nidhaahno waxa imika dalka ka socda ee dalka ka dhacay muddadan u dambeysay. marka hore waxaan tacsi u diraynaa annagoo ku hadlayna afka taageerayaasha xisbiga ee dalka Norway iyo qurbahaba. waxaan tacsi u diraynaa dadkii la laayay eheladii ay ka dhinteen. ilaahay samiriye maan idinka siiyo dadka shuhaadada ahana ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo. waxaanu cambaaraynaynaa falkaas oo hafal waaxishnimo ah fool xun in dad salmiya u mudaharaadaya in rasaas lala dhaco oo ah waxaanay xitaa dowladii siyaad barra samayn jirin. dowladda siyaad barra meelaha militarigu soo galaan ayuunbay dadka ku leyn jirtay iyo dadka meelaha ka qabqabatay oran jirtay aslamta taageertaan. laakiin dad si salmiya u mudaharaadaya rasaas lamay dhici jirino edituugii markii lagu mudaharaadayay ee uu fal qabanayay dadka rasaas lamay dhicin xabad sida hoos ugumay dhigno baroonkumay furanayay rasaas. waanu cambaaraynaynaa falka aad iyo aadna waanu uga soo horjeednaa. waxaanu leenahay adduunkana waanu gaarsiinay. adduunka markaanu gaarsiinayna ma dacweynayno Somaliland ma dacweynayno laakiin maamulka ayaanu dacweynaynaa meesha ka jira ayaanu adduunka ka dacweynaynaa u sheegaynaa inuu yahay maamul dictator kalidii talisa dadkiisii laynaya adduunkuna inuu wax ka qabto aanu xaq ugu leenahay. anagoo dhinacna aqoonsigii Somaliland iyo horumarinta Somaliland ka doonayna waxaanu dhinacna u sheegaynaa inuu taliska guracan sidii adduunyada wax uga qaban lahayd loo qabto. taa markaanu dhaafno waxa la isku hayaa waxa weeyaan sida ogtihiin Somaliland meel fog baa laga keenay waa loo soo dagaalamay dad badan baa u soo dhintay guriyo magaalooyin dhan baa u dumay oo ogtihiin dad dhan baa loo soo laayo 44 la isugu xiray qadiyada Somaliland. waxa weeyaan SNM ururkii loo oran jiray Somaliland ka timid. ururkii SNM waxa dimuqraasi buu ahaa ilaa maalintii lagu dhawaaqay ilaa maalintii dalka la qabtay. waxa urur dimuqraasi ah oo doorashooyin la qabto. markii dambe Somaliland dadkii degayo dhan la isugu yeeray Somaliland la isla qaatay la walaaloobay in la heshiiyey. waxa lagu heshiiyey in Somaliland sharcigu sareeyo loo siman yahay la dhiso oo la sameeyo. taasoo process la soo mariyay cabdiraxmaan axmed cali oo ku wareejiyay halkii ugu horeysay cigaal oo ka dambeeyay oo dhintay isagoo processkii dimuqraadiyadda wada Somaliland dhidibada u taagay. madaxweynihii ugu mudnaa ee ugu sharafta badnaa ahdigii dambe ee ka dambeeyay raggaa hore waxay la kulmeen xilli fowda ahaa. daahir riyaal kaahin oo institutionka dalka oo dhan badankiisa dhisay ayaa ku xigay. wuxuu qabtay doorashooyin isku barbarkanaa oo isku xigay oo dimuqraasiya. aakhirkii waxa la wareegay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo maantu inaan Hargeysa ka yimid sheekeeyay wuxuu igu yiri oo Hargeysa in badan soo joogo halkan weynaga caruurteena qaar celina inaan la celiyay baa ii sheekeeyo qoyskoodu halka geeyay soo af Soomaaliga oo soo barto dhaqanka ku yiri Fariida oo nin loo oran jiray Mujaahid Cali Xasan Cali Afdheer oo burca ku dhintay oo adeer rumo u yahay. wuxuu ugu dhaadir dawladii Siiraayo iskaad bay soo celin jirtay. yacni wuxuu u jeeday dhaqaalaha dalka soo gali jiray laakiin tani wuxuu way gamba iskaada ma soo celiso. iskaadku waa tagaska weeyaan yacni dadkay wax ku soo celin jirtay buu u jeeday. dhaqaalo midhan buu dalku ahaa barwaaqo ahaa buu guuri wallahi been ma sheegayo tan. laakiin wuxuu waa wamaangigan oo waxaan ku dhaaday rasaas bay dadkeeda tani u siisataa. dalkeenu halkaas u marayaa in dimuqraadiyadda la laalo. waxa la isku hayaa waa doorasho. waxa weeyaan doorasho qabo
oo dimuqraadiyadda halkaa laga sii wado iyo maya waan joogayaa oo kalidii taliyaan ahaanayaa wixii dalka ka soo baxayna ciidamaan ku samaysanayaa ciidamadiina dadkaan ugu hanjabayaa imaka waxa run ah oo fact ah in ciidamadii faranta joogay guutooyin dhan la keenay Cadaadley Badar Wanaag Hargeysa galbeedkeeda gudaheeda in ciidankii militariga la soo galiyay ciidamada waxaan ugu baaqaynaa oo noo sheegaynaa dadkeena inay dadkoodii yihiin inaanay dadkooda rasaasaynin inaanay aqbalin amar khaldan inay qaataan hadday qaataanna cidii amarka bixisay lagala xisaabtami doono waxaan hadalka ku soo gabagabeynayaa waxa laynooga baahan yahay inuu qurba joognahay reer Norway inaynu taageerno xisbiga wadani inaynu bixisaan membershipka xisbigu dhaqaale u baahan yahay oo aragteen lacagtii dalka oo dhan baa lagu la dagaalamayaa xisbi institution wadanka ka jira ayaa lagu la dagaalamayaa cid kale markaa xisbigii ma haysto dadku haystaa waa inaynu refund sameynaa inaynu la soo noqonno dadka u soo celino xorriyadoodii min bari ilaa min galbeed ilaa bari dadku waa walaalo waxay u baahan yihiin nidaam cadaalad u sameeya oo ogtiin gobolada bari oo dhan dawladdi ma gaadho kama jirto galbeedka fog dawladdi kama jirto waxa weeyaan dawladdu waxa isugu soo ururtay xaafada iyo tuulooyin iyo qayb wadanka kamid ah taasina inama anfacayso waana iska horkeen waa qayb iyo xukun weeye dadku waa walaalo laakiin nidaamka Muuse Bixi baa kala qaybiyay Muuse laftiisana waxaynu ugu baaqaynaa oo inaga ah madaxweynaheennii inuu ku soo noqdo sharciga inuu wadan dhisan baa loo dhiibay wadan guux ayaa loo dhiibay inuu wadankii oo sidiisii ka tago oo uu qabto doorashooyin kii uu ku yimid oo kale waxa kale oo aan taasida isagana halkan u marinayaa waxa kale oo iyadana halkan taasi u marinayaa abwaankeenii weynaa macallinkii Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi oo shalay lagu aasay magaalada Hargeysa waxaan leeyahay naxariista shanaha ka waraabiye Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi oo inagu leh uu dhintay oo inuu aasnay laakiin uu inala jooga markasta Hadraawi wuxuu inagu yiri hadaladiisa wanaagsan baa inala jooga dhalinyarada reer Soomaaliland waxaan ka codsanayaa inay akhristaan buugaagtii Hadraawi iyo hadaladiisii oo ah nolosha iyo aakhiraba dhan walba ka anfacaya وأنا دي السلام يا دمانتين وما تسنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبو مهسين هاي حريريها قارة يوروب يا أمريكا عثمان عمر دول هذه أدبو مهسين هاي